war uma diyaarsanine ama waa nala dhaca waa nala booba ama dhaxda inuu khilaaf hor la ka keena haddaan hor ugu sii socon yaanan hor loogu sii soconine aan u kaadino ilaa aan diyaar war adiga haddaan noo sheegay dadkaaga loo qaadanaya adaaba noole adigu haddaa isdhiibto ama aad dhimato waa sax waa la qaadan dalkaaga dalka dal fiican weeye laakiin haddaa soo taagan tahay Soomaali waxeeda qofkii u yimaada isaga u dhimanaya Itoobiyadii Tigray ways 3 milyan bay ahaayeen khatar badan kama jirin dhankaas laakiin Itoobiyada hadda Oromo oo 50 milyan ka badan oo xoogii powerkii iyo madaxtooyadii Itoobiya iyo ciidankii iyo qowmiyadii ugu xooganay helay khatar badan baa ka imaan karta marka tuuga jeebkiisa wax la gashadaa mashruuc la yiraahdo Itoobiya aan wax ku darsano si aysan nool laqin dal kale malihin isagaan leenahay isagaan ku dhalanay isagaana ku dhimanaynaa qof walba waqtigiisa dhaafayna ma jiro marka niyada khayr u sheega in malaqi karta malaha dacar Soomaaliya dacar waan isku dayay meeqasan isku dayay waa wadan aan wali madax banaanidiisa iyo ku meel gaarnimada aan ka bixin waay ma joogan Kenya mana joogan Ethiopia mana joogan Uganda ina ogaataan waay mana joogan Suudaan wadamada dariskeenna Eritrea intaba sababtoo ah dawladnimadooda la ictiraafsan yahay wadan haddaad aragto marka qof ka wakiil qaramada midoobay oo joogo wadankaas wali wuxuu ku jiraa marxalad dadkii naga horeeyay waxba garanayeen oo dadkooda fiicnaa banaanka laga maray oo wadamadii anaga Afrika ugu horeeyo xorriyad qaataana Soomaali lagu ma soo dhaco dadkiina kor u qaada kalsoonida kor u qaada hadii ay jireen madax aad shaki ka qabtaan walaal shaki anaga qabana anaga in ka hor dhimanayna anaga diyaar u ah inaan ka hor dhimanno laakiin anaga harina hanaga bixin dagaalka xagee dawladda loo raacaa haddii walaaltinimo la isku taageerayo oo la leeyahay Sacuudi walaaltinimo lagu taageeray Djibouti yaa mudneed haddii dan la isku taageerayeen Sacuudiga maalinta danta laga rabaa mudneen man siyaasadda dibad maxay ku dhisan tahay ma yaa ii sheegi kara hadday dan tahayna Sacuudiga xoolaha u dhoofino Imaaraadka oo xawaaladeen dhaqaalaha yaalaan ganacsi lahayn shalay waa ka tagin dadaa waxay ku leeyihiin dawladda waa dhaxdhaxaad dhexdhexaad ku noqonay haddaad safiir ee laboorka lacagta ka qaato ku baadasho midna filla Soomaaliya aad ku rasiif garayso dhexdhexaad ma noqon kartid dadkiina kor u qaada kalsooni lahaada qof Soomaaliyeed ku nool yahay dadka islaam qaadan waa jiraan dad Soomaali ah oo la adeegsado waa jiraan oo shay adeegsado waa jiraan